xaqdarna dishay gurigiisa lagu dilay gurigiisa lagu weerar xoolihiisa lagu dilay gurigan waa guriga Abuukar Mukhtaar hooyadiis waayeel ah oo sariir saaran ay degan tahay halkan waxa ka jirta tacsi iyo murugo waxaana xalay magaalada Muqdisho gaar ahaan Tarbunka lagu dilay Abuukar Mukhtaar oo 39 jir ah Abuukar ayaa waxa uu marka uu gurigiisa ka tagayay oo reerkiisa ugu dambeysay sida la sheegay caruurtiisa midka wiilka ah uu ku yiri aab labada dhinac iga shumee kadibna waxa laga yaabaa in aan soo laaban sida marka uu baxayna qoyska waxa soo gaaray war marnaba aysan ku farxin Abuukar Mukhtaar sida ay qoyskiisa inoo sheegeen in wiilka dilka geystay Abuukar iyo isaga ay guriga ka wada cashayeen kadibna telefoonka wiilka dilka geystay oo qaaday sidaana uu u damcay Abuukar in uu telefoonkiisa ka soo qaato kadibna geerida loo soo sheegay Allah u naxariistay Abuukar ayaa qoorta mid loogu dhuftay sidaana dhigbax oo u dhintay Abuukar Mukhtaar ayaa ahaa cameraman duba muuqaalada xafladaha iyo sidoo kalena waxa uu ahaa mid farsamo yaqaan ah oo qalabka guryaha naqshadeeya waxa dhacday inuu gurigiisa tago oo markaas inuu ila casheeyo oo baxay oo guriga oo aaday guriga markuu aaday mobilkii uu jaajar gashtay mobilkan mid wiilkan diri doona imaaday way buuqeen wiilay dariska ah wuxuu yiri walaal jiingadaha isku dhagiina qayrada naga daay hay waaye walaal ordaha banaanka u baxa saas markuu u baxay mobilkiisii uu ka siibtay earphone oo jaajar ugu jiro ka siibtay asigi sariirta iska koray muusan sidixraan sariir gabar meesha fadhisay hadda arki doontiin waxay tii mobilkaaga ninka wala baxay uu ka soo tagay uu ka soo daba orday soo orday anuu yimi warisay miyaha mobilkayga waa la iga qaatay waa ka qaatay bishaar fara badnaa iga qaatay okay waa mobil hadii lama weynaayay subaxdii waaga hanoo bari cidiisa loo tagaa iska dhaaf iyo cunugiisa soo dhaay aab ma isi caaw aan jeef dheer u socdaa waa la dila la shaki waaye iscafin iska baxay waa soo baxay wiilku soo tagay wax yar hadii aan joogay adiga waxaan 2 daqiiqo 3 daqiiqo aan dhameen telefoonka la iga soo wacay Abuukar waa dhintay ogow waay nafta dhulka kula ma dhicin waay dhaawac miyaa mise nafta ku jirto nafta ku jirto dhulka lama dhicin waay okay waa orday istalkiyan tagay CID-da keenay Madiina la keenay ka bacdi guriga hooyadiisa iska keenay laamaha amniga iyo dawladda waxaan ka baryaa haduu xaq jiro ninkaas walaalkay gacan xaq daran lagu dilay waxaan ka baryaa inay xaqooda soo dhiciyaan hadii soo dhicin xaq darna dishay gurigiisa lagu dilay gurigiisa lagu weerar xoolihiisa lagu dilay waxaan ka baryaa laamaha amniga iyo dawladda waxaan ka baryaa amba ka codsana xaqiisa in loo soo dhiciyo xaqiisa in loo soo dhiciyo oolaadow ka tagay adduunka ka waday waxaan ka codsanaa dawladda ilaamaas inay ilmahaygaas xaqooda u soo dhiciyaan wiilkaas walaalkay ilmahaas xaq u soo dhiciyaan hadii xaq uu helayo laamiga amniga waxaan ka codsanaynaa in aan helno cadaalad gacan ka xaq daranaa dishay xoolihiisa lagu dilay telefoon wuxuu yahay ma jirto laakiin maxay ahayd Allah musta'aan telefoonkii gurigiisa lagu dhacay gurigiisa sida hadda aan xogta aan ku maqlaayo gurigiisa loogu galay telefoonkii uu ka soo qaatay telefoonkeyga waa soo qaadanaya okay telefoonkii qaadistiisa waxaana loo keenay meydkiis oo la wado marka laamaha amniga iyo madaxdeena sharafta badan waxaan ka codsanaynaa in aan cadaalad helno waxaan la dhashtay wiilka walaalkayga Abuukar Mukhtaar Ismaan ma sha Allah walaalkayga waxa dishay gacan ka xaq daran waxaan u baahanahay walaalkayga inuu cadaalad helo waxa loo dilay walaalkayga wiil oo cabtooy ah ayaa ugu dacwooday wuxuu wiilka ay soo galin guriga kadib waalidkii markuu u tagay oo xaray kadib wuxuu yiri intaana wuxuu yiri kadib wuxuu yiri yani say ugu dacwooday waalidkayga aan soo dilay wiilkii waxaan u baahanahay walaalkeena inuu cadaalad helo wax kan u baahanahay waa jira waa casheeyeen kadib telefoonku ka xaday kadib telefoonka yaa qaatay yiri wuxuu yiri hebel yaa qaatay soo socda walaalkayga ala dilay saadalki toorey ku dilay la qamar gacanta ku wata dilkiisu waxaa maqan 5 saac iyo bar haweenimo wuxuu qaban jiray kaamiraysta wuxuu ahaa iyo xoogtiisa iyo faryaamo ahaa caruurta wuxuu ku tagay 2 gabar iyo hal wiil waxaan ka codsanaynaa laamaha amniga in walaalkeen cadaalad helo wax aan kale aan rabno ma jiro Ayub Aadan Xasan Somali Cable magaalada Muqdisho